gudbaysa biaynis waxaan rabay markii hore imtixaan la'aan inaynu gudubno laakiin suurtagal noqon mayso soo macallimiinta kale weydiideen aynish tofumus test ayaan habeen dambe leenahay ma adka insha allah wuu fudud yahay laakiin xoogaa test baan sameynaynaa insha allah qoraalkeena iyo waxbaynu fiirin doonaa insha allah dhowr xoogaa baynu ka shaqeynaynaa qaabka uu noqon doono biri subax ayaan idiin soo sheegaya insha allah waxaa dhici karta in live noqoto live waa fahmaysaan soo maha macna dil qurxan inuu qofka kamerada microphone-ka uu furto si loo arko cid caawinaysa iyo kaliya inuu yahay waxaana dhici karta inuu iska fududaado offline noqdo labada way dhici karta biri subax baan insha allah idin la wadaagaya laakiin habeen dambe waxaan leenahay aynish tofumus test insha allah marka macna qaabkeed u qaadaysaa so sidan caadiga zoom-kan soo gelaynaa mar kasta laakiin zoom-ka qaabkan u soo gelaynaa ayaana wali ii cadaynin ma waxaanu ka dhigay waxa laga dhigayaa live oo ardayda qof kasta inuu kamerada microphone-ka furto imtixaanada caadiga inta badan aan u qaadno masaa'idinka maadaama aan markii horeba soo jeediyey in imtixaanka laydinka dhaafo waxaad ku gelaysaan sida caadiga inaad ka shaqaysaan casharada so waxay u badan tahay inaan live ku galno bal macallimiintaan lasoo biri dib isku noqon doona biri subax baan idiin soo sheegaya insha allah weli ma ogi qaabka marka imtixaanka qaabkeed u qaadi macna ya qoraal buu noqonayaa insha allah hadal iyo ma jiro iyo bahalki toon waa qoraal keliya waxaa laga shaqeynayaa warqadaa la buuxbuuxinaya grammatic sax dina waxbaynu buuxbuuxinaynaa so fortishten satsabaun grammatic ahaan waxaasaa la fiirinaya insha allah okay dina so sharaxaad ayaan bilaabaynaa dabadeedna waxaynu aadaynaa taas beri subax baan insha allah idiin soo sheegay caadiga aan noqon ya walaal hala nacam saacadan إن شاء الله معلم inaa saacadda sidii caadiga ahayd walaal xilliga caadiga baynu soo gelinaa xilligaanu cashirka qaadan lahayn ayaanu waxaanu sameynaynaa aynish tofumus test dabeedna beri ayaa inoo ku dambaysa galaaskan so natiijadiina laydiin soo sheegaya 5 bishana waxaanu isugu soo laabanaynaa qofkii aan markaas natiijo hoose keenin dhammaantiin waa idinku kalsoonaa way rajeynayaan natiijo fiican keentaan waxaanu bilaabaynaa 5 bisha galaaska caadiga إن شاء الله so macna hadduu qofku hoos ka maro untada loogu doonaysa talagalay waa lala wadaagaya insha allah so intaasaa laga rabay intaasaa keentay saasaa u qortay qoraalkiisii iyo qaabka wuxuu qoray iyo waxa uu qalday waxa laga rabay waxna waa lala wadaagaya marka uu gudbaya miyam soo haray macallin hadduu pointiyada ka hooseeyo wuu haraya sababtoo ah macna qofku soo noqosho male ya haddaan ku adkaysano anagu hadhnay inaan sii socono ka waran dadaal baan la iman lahayn oo naxariiso xusuusisay nin macallinkiisii gacanka nin waxaa jiray cawal yar la oran jiray oo aanu isku tuulo macallin baa qur-aanka noo dhigi jiray marka macallinku ninka kan laysi weye macallinkuna waa diri jiray si xun buu u diri jiray hal wuu naga weynaa marka aad buu nooga weynaa habeenkii maalintii dambe qulba subaxdii dambe lasoo qaatay waxaa la leeyahay haddii macallinku maanta ila hadlo gacanta ka jibinaa kaftan baan u haysanaa anaga dil baan leenahay carruur bay khayr maray marka meeshii nimi macallinkii waa kan ninkii waa muu maagmaagay ka soo bax qur-aanka waxoogaa buu guurguuri ninkan hangool buu hoosta ku sitaaba bab hangoolkii buu la soo booday macallinkii gacan buu isugu laabay marka gacanta caadi bay u jabtay macallinka waa la kabay mancamadii waa la xiray midda macallinka kabnaa so marka sheekadii bay xayaadii soo xusuusisay hadda macallin burar badan baa la sitaay marka lista laga soo dhaco maa safay baa lasii dhiganaya base maxaa la samay sheekadiina wallahi waa macallinkii waa ardaygii macallinkiisa jibiyey cawil badan waxaynu eegaynaa waxaan rajeynayaa dhammaantiin natiijo fiican keentaan so waxaan jecelahay qofkii natiijo hoose keena inuu aasfay bilaabo laakiin go-aankiisa isagaa leh hadduu rabo iskoolka dhan buu ka hari karaa hadduu rabona yanahu ku adkaysan karaa laakiin markuu ku adkaysta anagu weydiisa marihi hadduu ku adkaysto waa la gudbinaya hadduu ku adkaysto yidhahdo trustaan natiijada keenay waan gudbaya lama celinayo laakiin waxaan ba rajeynayaa inaydinaan natiijadaas idinaan ka hoos maraynin waayo waan ogahay leefalkiina macallin markaa kuwa asfayguna xillimay bilaabayaan iyaguna nimco reer asfay baad ahayd soo maaha ha nimco adiga habeen dambe fasax baa tahay rooda iyadana caawa inoo ku dambaysa maadaama sii gudbeen sabab habeen dambe u timaad ma jirto batman nimco marka galaaskaagan ku eegay adiga asfay reer biaynis waad kala hadheen idinka reer asfay waxaad bilaabaysaan walaal 5 bisha isku dhigaatiin qoladan waad ka horeynaysaan idinku 6 galabnimo waad bilaabaysaan halka iyagu 7 barka ka bilaabay ma iyaga 7 barka bilaabay reer biaynis reer asfay baa 7 barka 7 barka ay bilaabaysaan idinka nus saac baa idinku sii daraya xilligiin anaga waa misad macallin reer biaynis waa 6
saacad baa lasoo hormariyay ginaaw وفوقنا عندها معنا ginaaw waa jimce sabti iyo axad waa xilligeena hadda dhigan hadda maxaynu dhiganaa inagu axadda inagu weekend ma dhigano idinku weekend baad u wareegeysaan labadiina reer asfay iyo reer bianis ba weekend baad noqonaysaa qorana waxay soo galaysaa 6 maqribnimo ilaa 7 iyo barka qorana waxay soo galaysaa 6 ilaa 7 iyo barka ginaaw qorana waxay soo galaysaa 7 iyo barka ilaa 9 بيانس هو اللحظة معنا بيانس waa 6 ginaaw بيانس waa 6 ilaa 7 iyo barka isku maalmana waatiin oo isku xigtaan waxba idima dhaxayaan إن شاء الله وهلك حياة أبكيس قام قلنا ولا إن شاء الله ما خير إن شاء الله لا مفضل ما إن شاء الله ويفضل إن شاء الله سو أردنا نلفت وانقرنا يا وان قياس كلا وانقرنا يعني كل بيسين مع المعرض كلا جرتا وفرشان كديقتان فورشان كهاول الوان دقنا كان شرمل كينوستري لو وان دقنا marka way socdaan galaasadu imika mise waa galaasada bilaabaya ما ولا way dhigtaan soo inta badan ardayda videos bay 10 ku qaataan markay iskuma xidna ardayga aynsa baan loogu dhigaa insha Allah khasa ma haynaad group hesh soo markaa biroodida ay bilaabaan soo markaa rabtay ay bilaabi soo dalmaamada ay 10 dhiganaysa jarmalka Austria way ka badan tahay xogaa 1500 jarmalka waa fudud yahay waa 1100 iyo xogaa marka soo dalmaamada ay ku dhigna صح وأذكي لكن إن شاء الله on try gareyn doona hadii la helo مع البوق ميا كقرتين مركا walaal maya buug كلمة waan turjunay walaal af Soomaali ayaan ku turjunay laakiin buug ma aanan qorin soo buug caadi ahaan waan qornay annaga laakiin official ma aha soo buug official aan qorna ma aha laakiin turjumada waan turjunay ginaa marka hal bil kaliya la dhiganay ginaa maalinta 40 su'aalood ay ardayga loo dhigayaa soo 40 ka su'aalood waa inuu soo diyaariyo maalinka labaadna 40 su'aalood waxooga aan string indi way dadka aad bay ugu adagtay inta hooyooyinka dadkan dadaalka lahayn soo maalinka waxa laga rabaa ugu yaraan ugu yaraan 2 saacadood ama 3 saacadood inaad siisid 2 ama 3 saacadood maalin kasta oo soo marka macallin Soomaaliyeed ku dhigtaan ginaa ku turjintaan 2 ilaa 3 saacadood dan 30 maalmood baad ku dhameynaysaa hadda saa ku socod hadii kale waxay noqonaysaa inuu kugu jiitamo maalintiiba marka dhowr saacadood 2 saacadood 3 saacadood baa la dhiganaya soo 2 saacadood soo markii hadda video waxaad waan ku dhiganayaa videoga markii la soo duubo 40 ka su'aalood wuxuu soconayaa 50 daqiiqo ugu yaraan ama ugu badnaan 1 saacadood videoga waa inaad shidatid waa inaad halka saacadood daawatid maxay halkan khalad u tahay maxay halkan sax u tahay maxay macnaheedu tahay maxay saan tahay videoga marka 1 saacad dhameystid waa inaad markiiba dhameystid application-ka oo telefonka ku jira waa inaad markiiba furtid dabeedna waa inaad saacad practical samaysid way hadda macnaheedu waad fahmaysaa practical-ka soo marka practical-ka saacad ilaa 2 saac ayuu kaaga baahan yahay saas ayaan ku soconaa soo saas ayaan ku soconaa bishina waan sunahay oo comrade 3 bilood weeye guudahan oo ardaygu markuu bil dhamay waxa loo dhigaa bilood oo practical for example هذا سيدنا رحنا دلين بعد برانسا نبيده هو رحمه الله كحره so aydan arday markuu bil dhamay loo bilood gratis baa loo socdaan lacag dama laga qaad marka koorsada waa 500 weeyaan imtixaanka marka ay ka qaaday meelaha caadiga tagaya haati imtixaanka ay shaqo kumanay waa kaliya waxaan anagu dhigno waa theory-ga practical shaqo kumanay qofku inuu iskool tago istihil sameeyo dhakhtarkii soo maro dabeedna imtixaanka sameeyo laakiin waxaan kaliya anagu fahamsinaa maxay halkan khalad u tahay maxay halkan Soomaali baan wax ku sharaxay soo inta badan indhahan ka qaybna forenshanka indha ka qaybidna khatar badan bay keeni kartaa ما دافع Soomaali lagu dhiganayo waa fiicanta qofka practical-kina uu sameeyaa xaggana uu sameeyaa labada dhinac oo sameeyaa soo midlaad su'aalaha jarmalka inta badan actual searing baa la sameeyaa waa la bedelaa taasna inta badan waa noo sameeyaa ardayda waxa laga yaabaa ardaygii soo arday badan oo hadda galaaskana is qoray mid 3 jeer ku soo dhacay baa kamid ahaa waxaan la yaabnay 3 jeer ugu soo dhacday wuxuu su'aalo cusub ma aanu leeyahay keenay application-kiisa aanu eegnay wuxuu basitaa ab 2018 soo markii forenshanka soo iskoolka markuu ku yiraahdo ab la soo deg ama abka aad adigu iskala soo degtid abkani waxa ku soo degi kara ab 2018 oo su'aali 2018 ku jiraan 2018 ilaa haddana 5 jeer baa wax lagu daray forenshanka su'aalaha cusub oo dhan baa markii ka maqan soo marka hore waxaan hubinaa sanad walba waxay ka bedelaan 2 jeer sanadkii 2 jeer bisha afraad ayaa hadda la bedelay qaybta jarmalka Austria la mid maaha 5 sano ayay wax bedelaan hal mar laakiin jarmalka sanadkiiba 2 jeer baa la bedelay dib badan aan ishtariin gindi weey waa inuu qofku mar walba abkiisa la socdo maxaa isbedelay waa important laakiin furashan
functionka waa waliba see markaad family tahay aad buu muhiim u yahay lagama maalinka aad iyo aad you know so waxaan bilaabaynaa sharaxaadda iyo inaan sheeko gelin casharkii xalay baa inoo yaala bismillah waxaynu qaadanaynaa wax la yidhahdo reflexive verb haye macallin you know sheekh maxamed jazaak allah khair reflexive verb im accusative verbka isbedbedela verbka isbedbedela ma verbka waxaan ka hadlayaa isku soo noqda reflexive dative-ka ah hore accusative baynu cashar uga soo dhiganay soo maaha dative maynaan dhigan aydan dative baynu caawa qaadanaynaa dative-ku wuu yar yahay aad buu yar yahay waa reflexive verbinka waxay u badan yihiin accusative accusative ayaa verbka badankiisu waa accusative hadday noqoto reflexive wuxuu badan yahay accusative hadday noqoto sign iyo hab wuxuu badan yahay accusative hadday noqoto soo habinka ayaa ugu badan habinkuna waa accusative hadday noqoto reflexive accusative buu badan yahay marka dative markasta wuu yar yahay aydan waxaa jira marka verb labada dhinacba gala oo marna dative noqda isagoo reflexive marna dative reflexive noqda marna soo accusative reflexive noqda halkan dhowr erey baa inoo ku jira iyadana waan tilmaamayna markaynu marayno so bismillah sich überlegen ka fekerid macnaheeda afka soomaaliga waa ka fekerid waana reflexive so dative reflexive tusaale ich werde mir so mir dative eine Lösung überlegen ich werde mir eine Lösung überlegen waxaan ka fikirayaa xalka ayaan ka fikirayaa ama waan ka fikirayaa xalka yani xalkan ka soo fikiraya xalku muxuu noqonayaa xalka ayaan ka soo fikirayaa mushkilad baa taala arrin baa dhacday ja ich werde mir eine Lösung überlegen waan ka soo fikirayaa xalka sidii mushkiladda loo xalin lahaa waan ka soo fikirayaa aydan haddaad tiraahdo ich werde eine Lösung überlegen waa khalad sababtoo mir ayaa laga rabaa waa dative reflexive so waa reflexive verb mir markasta waa inaad wadatid waa first reflexive verb sich vorstellen iyadana waa accusative iyo dative labadaba so tan waa dative keliya tan marna accusative ayay noqotaa marna dative ayay noqotaa waa reflexive verb in accusative so for reflexive dative im reflexive verb im accusative so hadda accusative ahaan ayaan qortay jumlada tan waa inaan bedelo jumladaasi waa inaan bedelo tusaale ahaan jumlo kale inaan ku bedelo weeyaan suurtagal maaha jumladaas inaan isticmaalo sababtoo tan waa accusative for example ich mochte mir mein Chef kennenlernen ich mochte mich mit meinem Chef ja for example ich mochte mir mit meinem Chef ich mochte mich mit meinem Chef vorstellen so accusative ahaan ayaan soo qortay waa inaan bedelo marka dative waa inaan jumla dative ku dhiso so marna dative ayaa loo dhisaa marna accusative ayaa loo dhisaa so dative for example ich stelle mir vor tusaale ahaan ich stelle mir vor ja ich stelle mir vor so mir vor halkan waxaan niri ich habe mich im Büro der neuen Mitarbeiterin vorgestellt xafiiska ayaan barayay shaqaalada cusub marka taas waa khalad waxaanu ka dhigaynaa taas waa khalad maaha laakiin accusative waxaanu ka dhigaynaa marka redmi so waxaanu ka dhigaynaa dative waxaan leenahay marka ich stelle zum Beispiel ich stelle mir ich mochte mich kurz vorstellen zum Beispiel ich mochte mir zum Beispiel ich mochte mir kurz vorstellen zum Beispiel waxaan rabaa wax yar inaan istiraaxo tusaale ahaan ich mochte mir kurz vorstellen zum Beispiel ich mochte mir kurz vorstellen mir so waxaan rabaa wax yar inaan wax yar istiraaxo dann kannst du weiter erzählen. Ich komme aus Somalia. Mein Name ist Mohammed oder Ahmed oder Halimo. Ich bin ein Ingenieur. Ich bin ein Doktor. Ich bin dies und dies. Kannst du dann einfach sich vorstellen. Aydan, ich mochte mir kurz vorstellen. Dativ. waxaan rabaa wax yar inaad sharaxo. Sich vorstellen. soo sheegnaba waa reflexive verben im accusative. So for reflexive verben im dative. labadaba way noqotaa. Sich function iyadana macnaheeda afka Soomaaliga function waxay noqotaa rabid sidoo kale waxay noqotaa rajayn
rabid iyo rajayn labadaba waa loo isticmaalaa hadda rajo ayaynu u isticmaalnay tusaale was wünschest du dir für die Prüfung was wünschest du dir für die Prüfung maxaad ka rajaynaysaa imtixaanka qof baa imtixaan gelaya jetzt frage ich euch was wünscht ihr euch für die morgigen Prüfung maxaad imtixaanka berito ka rajaynaysaa aydan maxaad ka rajaynaysaa imtixaanka maxaad rajadaadu maxay tahay inaad soo baastid inaad maxaad rajadaadu was wünschest du dir maxaad rajaynaysaa für etwas oder auf etwas oder so etwas intaba waan isticmaali karnaa aydan was wünschest du dir für die Prüfung maxaad ka rajaynaysaa imtixaanka qof baa imtixaan gelaya imtixaanka maxaad ka rajaynaysaa so macnaheeda waxaan idhi rajayn iyo rabitaan labada waa loo isticmaala aydan feebku dhibaatooyin badan buriyay mar daata buu ku leeyahay mar akaustif ku leeyahay mar macnihiisa bay isbedelaya Soomaaliga ahaa waxa dhan inaan sheegno so sich bürsten macnaheeda afka Soomaaliga waa feerasho ama shanlaysasho ninba soo fahmayay so du bürstest dir die Haare du bürstest dir die Haare timaha ayaa shanlaysanaysaa miya timaha ayaad feeranaysaa du kannst auch sagen ich bürste mir die Haare kannst du hier du ich ayaad ku bedeli kartaa ersetzen ich waxaan shanlaysanayaa timaha ich dann hier sagen wir mir nicht dir mir dann sagen wir ich und hier ich bürste nicht ich bürstete sondern ich bürste mir die Haare timaha ayaan shanlaysanayaa timaha ayaan feedhanayaa sich ken macnaheeda afka Soomaaliga iyadana waa feedhasho bürsten iyo ken wax u dhaxeeya mar waa isku mid ka rabtaa isticmaali kartaa labaduba waa feedhasho macnaheeda afka Soomaaliga labaduba waa verben waa reflexive verben im dative tusaale ich habe mir die Haare gekämmt timaha ayaan feertay waa faltiga weeyaan ich habe mir die Haare gekämmt timaha ayaan feertay sich ansehen so sich ansehen waa accusative sidoo kale waa dative waa sidaan ku soo mareynay vorstellen oo kale tusaale ich sehe mir ein Jacke an shaakad ayaan gashanayaa ama shaakad ayaan gashanayaa ich sehe so sich aussehen iyaduna waa la mid sich aussehen iyaduna sidoo kale waa dative so sowohl dative als auch accusative dative iyo accusative labada way noqotaa tusaale du siehst dir die Schuhe aus kabaha iska bixi du siehst dir die Schuhe aus kabaha iska bixi sich putzen iyadu markasta waa accusative waa dative marna accusative ma noqoto waxay la mid tahay überlegen oo kale so markay reflexive tahay tusaale ich putze mir jeden Morgen und Abend die Zähne ich putze mir jeden Morgen und Abend die Zähne maalin kasta habeen kasta iyo subax kasta ilkaha ayaan cadaya ich putze mir ilkaha ayaan cadaya jeden Abend so jeden Morgen und Abend subax kasta iyo habeen kasta aydan waxaan idhi sich ansehen sich aussehen iyo sich vorstellen saddexdaas waa verben accusative sowohl verben dative labadaba way noqdaanin inta kaleeto waa verben waa reflexive verben im dative accusative ma noqdaanin haddii jiro qof su'aal qaba intaynan u gudbin casharada kale macallin sich labadaba may u dhaxaysa markay labadee walaal de accusative iyo dative bas sich waa loo isticmaalaya miya habboon miyaa ما معلومة رحمة waxaan kaa rabaa for example reflexive pronoun in accusative ayaan kaa rabaa reflexive pronoun so reflexive verb markaan maqashid waxa meesha soo gelaya waa accusative iyo dative pronominka ku soo baratay maxay ku kala duwan yihiin reflexive verb so reflexive pronoun in accusative or the personal pronoun in accusative personal pronoun in dative oder reflexive pronomen im dative und accusative maxay ku kala duwan yihiin dhammaan reflexive pronomen dative and accusative waa kuwa u dhaxeeya labadaba for example do adiga maxaa ka noqonaysaa accusative maxaa ku noqonaysaa dative markii reflexive la joogo dish labadaba ii sheeg labada maxaa ku kala noqonaysaa dative na dia and accusative na dish
ما adiga ayaan ka hadlay aniga hayga hadlay aniga miya datif miya oo accusative mish لا ريختي شامل waad saxantahay waa saas labada un baan ku isticmaalayna aydan markaan accoustic joogno markaan datif joogno maxaynu isticmaalay miya accoustic haddaynu joogno maxaynu oranaynaa ich sehe mich miya ich sehe mich bay noqonaysaa soo ma ich sehe mish genau ich sehe halkan maxay noo qoran miya soo maha warte mal genau ich sehe miya halkan maxaynu oranaynaa ich sehe mich so ich sehe mich ich sehe mich ein oder ich sehe mich aus. Ich sehe mich ein zum Beispiel. Ich sehe mich ein. Ich sehe mich ein. Dann behnit zweite Objekt. Ich sehe mich ein. So waxa gashanaysa ma adan sheegin. Waxa rabtaa hadda waxa gashanaysa inaad sheegto. Sheega inaad sheegto. Marka maxaa u baahan tahay? Dative. Sababtoo zweite Objekt baa u baahan tahay. Meesha waxa u baahan tahay laba object. Dative object iyo accusative object. Oo so normkii shayga ay sheegaysa sida shaakadeeda oo kaleeto ama kabahayga oo kale ayaa waxay noqonayaan in zweite object tusaale ahaan ich sehe mir die Jacke aus zum Beispiel oder an die Jacke an zum Beispiel so halka kan haddaan idhaahdo ich sehe mich die Jacke دياك maxay tahay diyaaka dee datif mana noqonaysaa waa tamiya loo isticmaalo raxma maya saas ma qof baa la yaabay raxma ardayda kamid ah ku qasliya waa kuwa qofkaas haye yaa ii sheegaya maxay macaan ku soo celi bal so maxay halkani so diyaaki maxay tahay madatif am so accoustic waa accusative macaan taariikhti shaama xayaat waa accoustic datif halkan ayaan ku wataa waxaan wataa datif object pronoun baan kusoo qaatay so accusative objectna waan wataa oo diyaaki ayaa noqotay sababtoo laba accusative object labadana ma isticmaali karo pronominka iyo noomka labadaba accusative ma isticmaali karo sidaa darteed hadda waxaan ku khasbanahay inaan helo datif object oo reflexivekii baa wuxuu isku bedelayaa datif maxay noqonaysaa marka ilaa zweite object waan u baahday waxay noqonaysaa ich sehe mir die Jacke an ama haddii zweite object aan loo baahnayn iyadu maxay joogaysaa accusative-keeda oo maxay noqonaysaa ich sehe mich an miya maxay ugu khasbay objectiga labaad oo ah die Jacke waan fahmnay soo ma so macaan tasare haddii aan u baahannahay haddaadan noomka u baahnayn taas ayaad isticmaalaysaa haddaadan noomka inaad sheegto u baahnayn taas sare ayaad isticmaalaysaa haddaan rabo iyadoo accusative aynan u baahannahay noom kalena ja haddaad noom kale u baahatay markasta datif bay noqonaysaa automatic ich sehe mir die Jacke du siehst dir die Jacke sieht sich die Jacke wir sehen uns die Kleidung dharka ayaan gashanaynaa waa fahamteen soo ma so automatic maxay noqonaysaa verbenka accusative iyo datif ka dhexeeya markaynu u baahano nomenka so accusative objectiga automatic meesha way ka baxayaan wax la reflexive and accusative oo waxa imanaya datif sida halkan oo kale sich aus waxay noqotay du siehst dir aha maxaa ka sii dambeeya die Schuhe maxay noqdeen accusative halkaas u dhacay ich sehe mir maxaa ka sii dambeeya ein Jacke maxay tahay accusative xag uu guuri waan fahmay soo ma laba meesha waxaa iska daba dhacay pronoun iyo noom baa iska daba dhacay pronoun iyo noom islama geli karaan in hal object so hal category hal xaalad waa inay laba xaalad kala noqdaan so dative accusative laba xaaladood waa inay kala noqdaan for example ich waa nominative sehe waa verb mir waa dative ein Jacke waa accusative waa khasab marka inay saa isaga daba dhacaan waan fahmnay soo ma so waan ka gudbayaa marka waxaan rajeynaya inaa fahamteen aan qof su-aal qaba jirin cashir su-aalka qabo casharadii xalay xayaad cashirkaaga xalay maanan turjumin soo ma maanan eegin warqadaadii macaan ma turjumin xayaad ayaan ka bilaabaya caawa xayaad so xayaad xayaad warqadaada miyay dheertahay
نعم أولي كنت وين dhowr iyo konton erey ma computer baa ku diyaarisay مي عادي oo dan xayaad weli waxba iga maqan saan rajeynayo gino oo den funfonson den maxaa ka wadaa datum miyaa ka wadi halkan xayaad xayaad haye maxay den maxaa ka wadi walaal ma aqaan su-aasha diyaar baa u nahay ninka dee ogaadee marka waraaqaha la qoray yidhaahdaan den inaynu saa ay u qoraan dee ma aqaan laakiin den saas haa dabeedna daatadu imanayso daatumkii u qorayaan haa marka warqad la qoray iyagaan ku arkay ya datum waa sax datum waa qori kartaa laakiin den keligeeda haa tanay ka socoto ma aqaanaan den keligeeda waxaan malaynayaa walaal inaysan jirin ay kharato waan kuu soo diri doonaa sawa waraaqa ayna siiyeen oo markasta saas ku qoran tahay bal iisoo sawir insha Allah inta iyo magaalada waliba oo lasii raacinayo soo maha qaar magaaladii raacshaan qaar waa iska caadi waa lasoo gaabin keliya ku qoran karaa haddaad magaceeda soo gaabin kartid laakiin datum in den loo soo gaabinayo weligii ma arag datum dete waa loo soo gaabin karaa laakiin den looma soo gaabin karo saa fahmay oo halkaa taal uga baxdo qaybta koowaad segeheter mulla horta ertan waad ku wada khaldantiin ertan maxaa u keentay waay macan yaa geherte weeye geherter maaha geherte geerte malaha faraha way markay tahay macan miya markay nin laga hadlayo geherte weeye geherte nin yana geherte aydan taas khalad weeye xalin arday baan ku arkay kasoo gudub halka kan maasha allah horta gross on kaleena shiraabinta waa ku fiican tahay ich schreibe ihnen sehr richtig komma weil eine Problem für die Heizung habe waxaan kuugu soo qorayaa maxaa yeelay dhibaato ayaa Heizung iga haysata maasha Allah inta waa ku saxan tahay die Heizung ist seit 2 Wochen sehr richtig seit 2 Wochen nicht funktioniert maasha Allah könnten Sie bitte einmal kommen miya baan macan ka tagay halkaas können Sie mir bitte miya bitte und nicht kommen hier einfach vorbeikommen. Vorbeikommen. Kommen ist anders. Hier sagen wir vorbeikommen. Können Sie mir bitte einmal vorbeikommen? Dann hat die Admarka takte Mia, محن كده جينا تشاله. حسان كمان جينا لك. هلا قرأت كده يا كوتشيرا. So. einmal مع المكان راح أشوف vorbei مين تبعتها. Nein, einmal ma keenayso laakiin comment iyo vorbei comment ayaa kala qurux badan marka qofka leedahay ii imow so waa iska sax comment khalad weyn maaha waa oran kartaa comment waa sax laakiin say ku soo qurux badan tahay ku qoray vorbei comment ayaa ka soo qurux badan laakiin comment waa iska sumiya comment ma oran karaa sumiya comment ja können Sie mir bitte einmal sumiya vorbei comment oder können Sie mir bitte einmal so können Sie mir bitte einmal vorbeikommen. Ja, vorbeikommen hätte vorbeikommen über Hand der zu behni. Lakin so können Sie mir ja einfach zu behni hat. So einfach kommen. Mir kommen einfach. Zu behni hat. So ich bin nicht vormittags zu Hause. Vormittags zu Hause. Kennen Sie gut mit Joe? Ich bin nicht vormittags zu Hause. Das ist auch richtig, mashallah. Ich komme erst einmal 15 so 13 Uhr. Ja, ich komme erst 15 Uhr. 13 Uhr, ja. Mal dann loma bahnayn 15 Uhr. Ich komme erst 15 Uhr. Das ist ja bahna 15 Uhr. So 13 Uhr. Ich komme erst 13 Uhr nachmittags. Ja, nachmittags 13 Uhr nachmittags loma bahna 13 Uhr war Mittag nachmittag maha. So das way ka khaldan waran. Nachmittags dann meesha ka saar marka. Nachmittags dann meesha ka saar saa darteed saasay sax kugu noqonaysaa ich komme erst 13 Uhr so 13 Uhr und Abend ist auch ich bin zu Hause ja ich komme erst 13 Uhr zu Hause ja ich bin nicht vormittags zu Hause ich komme erst 13 Uhr so ich komme immer erst 13 Uhr und am Abend ist
bin ich zu Hause. Und am Abendis bin ich auch zu Hause, kannst du jetzt sagen, auch. Ja. Am Abendis so hier, Abendis war Norm. Sadartet, ich ist mir geraten, und Februar herum so. Ich komme erst 13 Uhr. Ich komme immer erst 13 Uhr, ja, immer. Das ist auch schon. Ich komme immer erst 13 Uhr. Und abends bin ich auch zu Hause. Das ist noch was gesagt. Oder, halke maxaa ka wadaa? Oder sie rufen mich an. Meine Handynummer ist. Ja, das ist richtig. Mein Hass Oder rufen Sie mich an. Ja, Sie können mich unter Telefonnummer anrufen, kann es einfach sein. Sie können mich unter Telefonnummer anrufen. Ja, Sie können mich unter Telefonnummer anrufen. Oder einfach Handynummer, ja, aber Telefonnummer, wir haben jetzt geschrieben. Anrufen. Ja, Sie können mich unter Telefonnummer anrufen. Ist die auch, brauchst du nicht? Ja, saas ayay kugu saxantay laakiin maasha allah jumladaada aad bay warqadaada aad bay wanaagsan tahay maasha allah warqadaada aad bay wanaagsan khalad badna kuma jiro warqadaada waa perfect so yaa ku xiga ismahaan iyo Frankie waa macalin iga xumaaday kale imika caawa mid kale ka soo galay kina qof baan arkay magac kale ku soo galay mar dhaweyd adiga yahay dabkiibu ii qaadan lahay ma garanayo kina ismahaan telefoon read ma waa adiga okay read so then come here mid freundlichen Grußen ayaa hoos ku soo qornay laakiin ma aanan arkin qofta leeyahay maybe inuu khalad ku jiro aad ka badbaadi so ismahan sehr geehrter Herr Ali Ahmed geehrterkaas looma baahnayn hiya khalad baa ku gashay sababtoo ah koma maadan siinin haddana garoose ayaad sii qortay halkaasi waa khalad waayo halkan waxay ahayd koma dabeedna halkan waxay ahayd kleine schreiben halkan kleine schreiben saas ayaa laga rabay weil ich meine Wohnung Probleme mit der Heizung habe mit waa khaladay halka da'daasaan der Heizung markaan soo diray waa arkay waa sax grammatica mid baan u waday da' baan laakiin raacay mit der Heizung kleine ayaa u qortay Heizung muxuu ahaa nom gross geschrieben mit dem Heizung habe ich erreichen halkan waa khalad ich erreichen maxaa ka wadaa jumladaasna waa khalad saa darteed jumladaas waxay noqonaysaa nasiib darro inaynu balow gelino khaladaadka way yaryahay wax yar baa ku jira soo ergana waxbaa ku dartay saa darteed ma gelinayno quruun soo ma gelinayno casaan laakiin qaybtii ku xigtay maxaa la oranayay tii oo gelb oo si casaan rabta casaan kusii dhowdahay ishaaraha haddii si casaan soo gelb so es ist dringend denn seit 3 Tagen musst du groß schreiben Tagen war nom Tagen ist Heizung kaputt. Ja, es ist dringend, denn seit 3 Tagen ist die Heizung kaputt. Aha, das war richtig. Tagen, groß ayanu kurena. Seit gestern, mashallah, seit du hast groß geschrieben, seit gestern ist es draußen kalt und in der Wohnung sind nur 16 Grad. Aha, halka kan waa khalad. Sababtoo Wohnung ist 16 Grad ayaa laga rabay. Seit gestern ist es draußen kalt und in der Wohnung ist nur mit der waa khalad sababtoo nur maxay sheegtaa nur ugu yaraan intaas wax yar markaa cabiraysa for example ich bin nur 2 Jahre in Deutschland 2 sano keliya ayaan joogaa keliya wuxuu ahaa 16 grad oo keliya ama
لأنه waxay ahayd inuu ka bato hadalku saas u dhacaya marka waxaad rabtay inuu barafku kugu sii batiyo qabowga marka wali uu yar yahay way qabow aqli gal maaha marka nuwa waa laakiin markaas macalin oo aad eegtay oo kale intaas buu ahaa maalin عند نوع جد سنيخت نوع ما جبت إيستي هل كنا وإيستي هل كنا وإيستي مرنا من نقول كرتستندي so seit gestern ist die es draußen kalt und in der Wohnung ist die auch 16 Grad ja und der Wohnung ist auch 16 Grad aber nicht schön so gegliedert wie مثلا لكن واسكا ungefähr so 16 Grad ja ist die auch 16 Grad in der Zeit banaanka dhaxan buu ahaa gurigana sidoo kale wuxuu ahaa 16 Grad maxaa banaanka iyo guriga isku xiray marka geglider ungiga ayaa ka khaldan geglider ungiga ayaa ka khaldan saa darteed tan waxaynu saaraynaa gelbiyadana das ist so kalt für mich meine so meine man khalad baa ku gashay laba khalad baa ku gashay meine son waxa ku gashay laba khalad und meine Tochter khalad baa ku gashay haben schon eine Erkältung waa waray intan dhan waa wada casaan marka awal gelbi baan way khaladkii oo aad u batan marka khaladka waa in casaan geliyo sababtoo ah waxaan ka rabaa halkan maxay noqon lahayd aniga markaan ahay mine weeye macalin maxaa mine man okay man magrosa loo qoriyo mise kaleene man magrosa mine adiga muxuu sababtu adiga markaad iska hadlaysid ninkaaga oo muxuu u noqonayaa mine marka gabdhaha ninkay markaan mine buu noqonayaa muxuu gabdhaha kalena mine u noqonayaa adigana mine u noqonayaa adigu gaar baa ka tahay marka luqadooda luqad gaar ah okay for mish anigu waan soo sheegay laakiin halkaas mine man oo man qoran ha man qoran meesha rabti ka hadal man waa man cidii rabta ha sheegato so ein man nin un ha noqdo ninkaaga ha noqdo nin kale ha noqdo mine buu noqonayaa eeda soo laga jaray entweder meinen oder mein zum Beispiel hier das so kalt für mich und für dann brauchst du hier noch 4 du hast hier 4 verwendet und hier brauchst du noch 4 und dann 4 und dann hier was kommt hier für 4 haben so maxay noqonaysaa halkani aniga markaas ka hadlayo ya so nein halkan hadda 4 ku isticmaasho waa khasabkan inaa 4 u isticmaashid marka haddii 4 timi halkan maxay noqonaysaa for example das ist so kalt für mich und das ist kalt für mich für mein Mann und ja macna say u noqon kartaa anigii baa iska hadlay laakiin for ma noqon karto de halkaas forta kala xaqiiq ka iman baad ku soo turjintay English iyo German islama yimaadaan qofta dhigaysa ma isku soo turjintay may for mish macalin aniga markaas ka wado ya und فيها هذا adigu ku isticmaashay waa khasab in halkan ku isticmaashay laakiin mar kale loogu isticmaal karaa macna laasim sababtoo fiya mich adiga waxa isticmaashay fiya qofka kugu xigay isagina soonigan possessive pronoun so ismahan das ist so waxaan ka rabaa halkan waxay noqonaysaa taas kula murmay taas waan ogahay in taas noqonayso waxaan ka rabaa halkan waxay noqonaysaa fiya waa ku khasbanahay halkan waxay noqonaysaa marka magacyaalka ka dhigay isaga فيها halkan maxay noqonaysaa in ay noqonaysaa mar weyn waqti weyn kalma sababta account information soo galay für mich und für meinen man musst du groß schreiben für meinen man so für mich für meinen man und für meinen so und für meinen Sohn hier brauche ich auch und ja هذا für استعمال سوما دائما فيه كل استعمال شيء وخاصة كون أنا كل استعمال شيء دون أي فرق بين family به هو تاسع كعرف يعني لكن يصيرون قاس und für meine Sohn auch musst du groß schreiben هل كان Sohn استعمل من غنية meinen Sohn صوت أكاوستيف وصوت شيء وأكاوستيف مركز أيضا das ist so kalt für mich für meinen Mann und für meinen Sohn und meine Tochter meine haben schon ein das Erkältung das war iska khalad halkaas jumladaas grammatikal baa saxay laakiin jumladan waa iska hor imanaysa ma saxna aidan wann können sie die Heizung reparieren halkan nicht reparieren sondern reparieren ja reparieren war ja lagu dhawaaqay reparieren so wann können Sie reparieren und hier ist es wann können Sie die Heizung reparieren ja gormaad samayn kartaan ist auch nicht richtig laakiin khalad labaad baa sii jira
ich bin halka kan maxaa u dhaxayn lahaa jumladana way dhamaatay jumladana xidhid baad komayna ku xidhid Soomaa sababta darteed iyadoo markii hore hadalkeedu uusan saxnayn haddana aad comedy ka tagtay maxay qaadatay gelbi casaan ma qaadanayso oo jumladaas macalin markaas marka dhibicda laga reebo maxay ku khaldan tahay yaa dhibicdii waa ka reebtay waxay kaloo ku khaldan tahay gelgeliida rungiga fan konen c kaleyn ayaad u qortay iyadana garoos yahay inaad u qortid fan konen c reparieren was repariert man dan brauche ich hier eine norm fan konen c maxaa ula jeedaa c ma qofka ula jeedaa mise waxa ula jeedaa haysanka maxaa ula jeedaa c may qofka deeqo aber fast eher so von können Sie die Heizung die Heizung du hast ja von können Sie die Heizung reparieren goorma ayaad Heizunga hagaajin kartaan goorma ayaad hagaajin kartaan Heizung ya goorma hagaajin kartaan hadal ahaan kuma toosnade goorma hagaajin kartaan so von können way hadalkan halka soo socday iyo hadalkan aan iswaafaqayn geliida rungiga hadal hormaanay hadalkan iswaafaqaynin so von können Sie dann Sie groß schreiben iyadoo geliida rungiga iska khaldan yahay marka haddaan ayaynu siinayna buntigana aan ku gelin laakiin caadi ahaan geliida rungiga ayaa walaalkaa khaldan so hier musst du groß schreiben maxay risabta anfangen weeye ich bin yadden waan garanaya waa iska khaldami kartaa yadden tag maxaa kale inoogu qortay tag waa nom groß u qor yadden tag zu Hause bleibe oder ich bin jeden Tag zu Hause bleibe das waa khalad ich bin jeden Tag zu Hause bleibe waa khalad iyadana saa darteed iyadana kaa khaldantay nasiib dar وين يدنا عسان الجليد أيضا بلايبة يبين لو ما بهنا يخبين يدن تك بلايبة وحلو بهي ما مش كونتكست يعني أنت بدن حلاقة هذا الكد أدو حسنا ده صح لكن كونتكست جا أديك سنة سيدا وهذا الكسكوا فقيا يا ورقة أنت بدن لو قلت أنا هو إسكا فهمي يا الصومالي بنا هاي لكن قف عدنا هذا دوجي اسمه فهمي هذا الكسكوا هرماني ما أيضا يخبين يدن تك سو هاوس بلايبة أو دا kommen Sie rufen mich an halkaas waxbaan ka tegey number warqad waan ku qoray mogta markii dambe waan dib waxay iga saareen casaanka waxaad ogeedin kasta trophy soo socda inta dhan casaan noqonayso okay me halka waxbaan ka tegey waan arkay markii dambe ayaga kasta trophy way inta tan dhan mararka qaar waxa loo yaabaa inaad adigu dadaashid oo isleedahay wixii waa ku saxayeen laakiin haddana waxaa saxday waxaa qortay uusan la fahmi karaynin waa sax ereyada adeegsatay contextiga waxa jira wax la geliida roong insha Allah baranayna hadalku isu raacayo hadii aad markay hadalku iska hor yimaado khaldamo imtixaanka waa lagu soo ridaya sababtoo warqadaadii waa qortay 500 erey baa qortay laakiin laguma fahmayo waxaan hadda ka hor xusuustaa yar aan Pakistaniya oo mar gurigayga ugu yimi wuxuu yiri intaas oo jirban biyaaniska ku soo dhacay markaas wuxuu iga sheekeeyay maalinkii ugu dambeysay misabisway wuxuu yiri waxaan qoray buu yiri 500 erey baan qoray buu yiri 500 erey waan la soo riday waan ku qoslay waxaan ku yiri 500 erey looma baahna so peace way for example history waaga 240 buu hadda inuu kriyaan mareynaya 240 kaliya ayaa laga rabay maxaa 500 erey kugu watay yani wixiina iska qortay adiga uu sax ku leeyahay hadalkiina hadda markii la akhriyo la wax badan buu qofkan eegaya qofkan waa inuu fahmi karo hadda warqadan hadda qof u qortid nicht verstehen صادرت بخرط كتاب سو اسمها لكن واد ايش اسمها وفي عن تاي اصفي يعني qoraalka aad ma u fiicna walaal level kaaga asfay oo ku fiican anigu waxaan ogahay horta inaan ku soo dhacay pianist English ay taqaanaa waxa cod qoyeen speaking iyo hooqinka iyo waxyaabahaas waan ku yar roonaan lahaa oo ku fiicanay laakiin shaqadayban kaygu daran English ma taqaanaa English ayaad la aadaysaa marka German iyo Englishna dramatic markii la joogo waxay soo yihiin dab iyo baansin way isku gubanayaan dil isku keeno ama Germanka lumaya ama English isma geli karaan markii kale ilaali insha Allah so waa iska fiican tahay laakiin insha Allah level kaaga waad ku fiican tahay so warqada degdeg soo qortay WhatsApp ku soo qortay inay saas intaas khaldan macna badan waa so yaa ku xiga Sheikh Maxamed Soma macna aniga adigu ah rooda hay wala so rooda
So Rhoda. So sehr geehrter Herr Faqaw. Herr Faqaw. هو صوفورت عسان وإيه هي فقاو حاجة كانت waa khalad قفت اللي يراد الرودة كنا هي فقاو جبتني أنا سيجهرت هي فقاو سيجهرت دائما هير مياه ودي ها أساسا كمان معلي لا ولكن لا سيجهرت دائما هير كبار أوكي dann komme ich hier nun ich schreibe eine E-Mail Ihnen eine E-Mail لو خلت ich schreibe Ihnen eine E-Mail سو وخرط إيميل بان دين سوقري وخرط إيميل إنه سوقري سوبوتشي ده هداد إيميل كأقرتي ربتيد إنه هلا إنك كرينا ودي سبوا حران كتا إخابي إنن gestern letzte Woche eine E-Mail geschrieben haben Sie es erhalten ich möchte noch nun wissen ob Sie es erhalten zum Beispiel letzte ich Woche habe Ihnen maxaa oran kara macalin ich habe inaad hesho oo kale habe Ihnen vor 2 Wochen zum Beispiel eine E-Mail geschrieben und ich möchte nun wissen ob Sie es erhalten haben waxaan idin soo qoray laba week hor email waxaan rabaa kaliya inaan ogaado inaad heshaniin kale ama waxaan rabaa iminka inaan ogaado inaad heshaniin kale aydan taas waa jumlo kale tan hadda emailkii hadda ba qoraysaa sababta aad u sheegaysid lama garanayo saa darteed taasna waa khalad ich schreibe eine E-Mail Ihnen weil ich in kuma aadan darin wuxuu isku daba xidhay waayo file waxay keentaa nebensatse halka kan markasta laasim komana ma aadan siin file baa iska isticmaashay adigoo koma aan meesha gelinin weil eine E-Mail Ihnen weil ich in meine Wohnung waa khalad wo dativ in maxay ahayd Wechsel Präpositionen maxay hadda noqonaysaa in meine datif ay noqonaysaa kaasoo ka guuraysa iyadana waa khalad saddexaad eine Probleme waa das Probleme isagana eine feminine baa ka dhigtay isagana waa khalad afraad mit der Heizung kalena ayaa qortay habe aydan jumladaas intaas oo khalad baa ku jira saa darteed waa casaan nasiib daro waxay noqotay casaan so aan ka soconno gestern baad ka wadi gestern baa ka wadi soo ma shalay gestern bin ich halkan waa khalad gestern iyo bin isma raaci karaan so gestern ich bin isma raaci karaan gestern maxay tahay iyada selbe nooma ichna waa selbe noom laba noom iskama daba dhici karaan iyadana hal khalad baynu hadda haynaa angerufen maxay tahay perfect angerufen habe baa laga rabay ungefähr iyadana maadan isticmaal so bin angerufen anrufen baa waxa ku isticmaashay verben mit sein habeen hore bay idin dhigayay inuu verben mit haben tahay verben mit sein baad ku isticmaashay halkaasna waa khalad labaad gashay layda iyadana waxaad u qortay si khaldan kannte ich sie nicht was meinst du damit kuma garanaynin oo kale ungefähr ich kann sie nicht kuma garanaynin iyadana waa hadal aan meesha ku jirin ich kann macalin wuxuu wada khalad ba erreichen es ist sehr dringend intaas horta iyadana waa casaan sababta hadalkii way isburinaya wax is waafaqaya maaha waa sax waa dadaashay laakiin hadalkiis ma waafaqayo walaa es ist sehr dringend denn seit 6 Tagen die Heizung kaputt es ist sehr dringend denn seit 6 Tagen die Heizung ist kaputt ist waa kaa maqan feebka waa kaa maqan waa kow Heizung kalena ayaa u qortay waa khaladka labaad gashay Grosse ayaad u qori lahayd S iyadana kalena ayaad u qortay waa khaladka saddexaad ay gashay Tagen iyadana waxa u qortay kalena Grosse ayaad u qori lahayd waa khaladka afraad oo ay gashay so afarta khalad dartood iyadana saddex hal jumlo kaliya afar khalad ku gashay maxaa sugaysaa casaan soma hal jumlo afar khalad meine Wohnung musst du groß schreiben walaal waa nom markastoo nom u yahay igaal meeshu ku dhaco bilow iyo dhamaad nom markastoo groß meine Wohnung sehr kalt halkan meey meine Wohnung waa sax waa nom maxay niri subjectiga maxaa loo baahan yahay markasta gross maya subjectiga maxaa loo baahan yahay marka subject la helo jumlada maxaa kaloo laasime subject ayaa hadda ardaydi maya wax fahamsana والله معلم قال اسك قري ما ardayda kale taan weydiinaya subject iyo maxaan u baahanahay maan subject iyo macallinkii baad u baahan tahay verb
عادة فيب كذي مية مركب مقعدي ما هينو فيب واحد فيب ما هينو سماها الرحمة قلت لي رودة واحد فيب ما هينو واحد لي ماينو فونونج سا وادجكتيف كالت وادجكتيف فيب كده waa kasoo tagtay uun bay masana iska dasta connection kale indee foonungi masana foonungi guryo bay kasoo dhigtay guryaha sendismas grad guryaha waa 20 grad halkii kan sendi way idinkaga saxan tahay sababtoo iyadoo halkan waxay ka dhigtay foonungen guryaha jamac bay kasoo dhigatay guryaha waa 20 grad de guryaha hadii 20 ay yihiin magaalada dhan baa marka 20 weeye adiguna kuwaas la mid tahay aydan wixii dhan walaalo iska hor yimaadeen Okay. Das ist so kalt für mich und meine Kinder. Das ist so kalt. So halkan marka intaas oo tacasaanka ii saar maadaama intaas oo khalad ku jira. Das ist das waxaad garosay inaad qortid so kalt für mich und für meinen so für meine Kinder. halkan für waa kaa dhiman hal laba khalad mid garosay iyo für akhraday. Meine Kinder ومثلا meine Kinder baa soo celisay. هاتت هذا waxay halka bunktina ku joojisid mayna kindana grosse ka dhigatid kinda soo kale grosse inaa qortid kinda waa nom mayna madama saas afaangeetay iyadana grosse inaa qortid haated iyadana si khaldan u qortay akalted maahan ekelten so jamac baa tihiin ekelten ayaa isticmaal lahayd iyadana waa khalad feeb khaldan baa isticmaashay intaasna walaal casaan ay noqotay sababtoo wixii dhan bay isburiyay lama fahmayo fan kone si di Heizung repetieren feeb jiri ma hora repetieren waa khalad fan waxaad garosay inaa u qortid kone iyadana waa khalad kone waxay noqonaysaa wax kale feeb kale kula aadaysaa macna kale samaynaysaa ya kone kron zum Beispiel so kone iyadana waa khalad si iyadana garos u qortay die Heizung cross kalena u qortay repetieren oo feeb aan jirina waa isticmaashay waxa soo dhan waxay keeneen iyadana inay casaan noqoto marka nasiib dar hab jumlada waxa wada ka dhigaysaa ya walaal hal xaraf oo ka khaldama waxa ka dhigaysaa casaan Soomaha macna maya kama dhigayso nine imtixaanka iyo naq qofba waxba wax ku calaamadiyo anigu hal xaraf kama dhigay laakiin jumlada waa inaan dhowr khalad ku helaa dhowr khalad baan hadda kugu helay kow soo kone waa feeb khaldan Soomaha okay kone waa feeb khaldan kone saas ma loo qoraa können si baad u karabtay Soomaha können si loo qoraa saas ma loo qoraa raxma روده ما يلا ما قرأ وجه ديني خلنا سي كلنا أيها وقرتي وتن لبعض دي هايسون كلنا أيها سكنا وقرتي نوم بوها كروسينا كريكتي وتن صدحات فيب خلدنا واستماشي وأفر فن كلنا أيها وقرتي وشن مركز شن تاميد كوس حم بمتجرو محمد مركز كوس يا جل ميد كاستخلط بانكو يرو شن تايري كمية سوما صادرت العسام بيوضا النقط جملة ذكرانو سيو قدمنا und ich bin so fan kalena u qortay kone feeb khaldan baa ismaashay si kalena u qortay Heizung kalena u qortay repetieren feeb khaldan baa ismaashay saas dhamaan khalad ku wada noqday ayna repetieren feeb jira ma reparieren saas loo ma qoro reparieren oder reparieren ja man sagt reparieren für Hochdeutsch spricht so halkan und ich bin jeden Tag jede waa khalad tag kalena ayaa u qortay zu Hause und ich bin jeden Tag zu Hause waxay ahayd komeyna halkaas siisid komedin way maqantay waa saddex khalad iyadana lagu hayo mit freundlichen Grüßen hadalkiina way already waxa wada khalad hadalkiina way isburiyay de ich bin und ich bin jeden Tag zu Hause mit freundlichen Grüßen hadaad guriga joogtid hadalku waa inuu iswaafiqi karo walaal for example goormaad Heizungka hagaajin kartaa anigana maalin kasta waxaan joogaa guriga intaas af Soomaali sax ma ku tahay markaynu feebabkanaynu hadda sida ka waday aynu u fahmno Soomaaliga inuu ka faa'iideysanay kan inaad koone ka waday fan inaad kaleenaheeda iska inta tirno kan inaad reparieren ka waday haddaan af Soomaali intan kuu soo qoro ku yiraahdo goorma ayaad hagaajin kartaa Heizungka ama kureyliyaha anigana maalin kasta gurigan joogaaye maxay noqonaysaa sax ma tahay ma sax ma aha anigana maalin kasta gurigan joogaaye hadal isqabanaya ma waa inaan ku yiraahdo Heizungka naga xumaaday saasa dhacday waxaan rabaa inaan ogaado ama waxaan ku weydiinaynaa goorma ayaad noo iman kartaa goorma ayaad hagaajin kartaa aniga xilliga ayaan guriga joogaa saas inaan wax basharayn ku sameeyo saa darteed already iyadana waa casaan yaa ku xiga macallin aniga wixii shatra ka akhris soo qof insha Allah waxaan isku dayaa inaan caawo dhameeyo maadaama habeenka ugu dambeeyay so khatra then
So sehr geehrter Damen und Herren, nein, sehr geehrte, nicht sehr geehrter. halkaas waa khalad Damen und Herren hal khalad baa ku jira halkan waxaa ka maqan punktigii waayo halkan waxay punkti inaad siisid caadi ahaan waxay halkan comma inaad siisid tanna waxay ahayd inaad kale inuu qortid halkan waxay comma inaad siisid tanna waxay ahayd inaad kale inuu qortid sidaa darteed halkan gelbi baa ku heshay maadaama laba khalad aad gashay halkan gelbi baan siinayna waxaad khaladay marka ugu horeysa geeherter oo era ku darsatay marka labaadna waxaad khaladay commada kuwa kale waynu tegaynaa ich hatte bei Ihnen am Dienstag schon angerufen. Ich habe bei Ihnen angerufen. Bei Ihnen angerufen. Ich habe Ihnen angerufen. Bei Ihnen angerufen لو ما بحنا. Bei Ihnen angerufen وخرب. وحلو بهاي ما. Ihnen سو كريدا نقراص إن لو قرب هاي سبتو. Ihnen هذا الجمع على جماعة اللي هو في الإخوان يعني سمع. جمع بانك وضع معه نين مركا ورقد قريس الجمع على جماعة الله. هذا qofka warqada u qoraysa jamc loolama hadlo hoofli ahaan baa loola hadlaa so by inan angerufen ayaa أنا شركة أو قرية شركة أو كلام مركب أو قرية وكلام قديم inan ayaa waxay ahayd hoofli khina u isticmaashid nasiib daro halkaasi khalad ayaad ka gashay by inan oo iyadana khalada waad wadataa waa laba khalad am Dienstag schon angerufen inta kale way ku saxnaan lahayd iyadana laba khalad baad ku gashay saa darteed iyadana jaarle ayay kaa noqotay هذا صدق خلد قليل هذا حين نقول هذا عسان واسقة وانكسر علينا فايل mein Heizung nicht funktioniert Heizung ارتكالك سمحوا لي هاي دي mein مين نقول يا مثلا meine ماينة صدرت دي أنا هالخلط باقي شيء سمعها فايل meine Heizung nicht mehr funktioniert سأسأل لكن إيقال إيدنا قلبي بيكاقة شغلات so هالخلط بي لكن هو اسكي سهل انت عسان ودي ما هذا قاري ich kann kein benutzen nein ich kann kein benutzen مع استعمالي كلام ich kann sie nicht mehr benutzen so واحد استعمالي كده ولي ما هذا الشيء ich kann kein benutzen ihnen haben sich leider nicht bei mir gemeldet قيمتنا عسان بصوص على خطر هذا كان ويسبروني عيد هلك حلقة ربي ich kann sie وأنا صار شيء محل محل قال لي يستون كان genau inta tana iska hortimi qaybta koowaad waa khalad waa kow halka kan waxa aan ku shaqeynay maadan sheegin halka kan waa khalad ihnen haben sich leider nicht bei mir gemeldet ja ich so ja ila ma idin soo xiriirin ayaad rabteen inaad tiraahdo ila ma idin soo xiriirin ay habe inaan angerufen ich habe ihnen email geschrieben leider sie haben nicht so leider sie haben nicht oder ja leider sie haben mich nicht gemeldet ja leider sie haben mich ja aber das ist komisch صادرت العسام بين قونيس قلت لي انا خاطر جملة already طبعا انا خلط بسكوس هي دم بسبرونيس يا جملة اللباد هلكا كوما با ولا حيستا هلكن دي سلبي maxay noqon lahayd صادرتي يا maxay noqon lahayd shiraymanka grosso soma sataan fangi bay noqon lahayd ilaa halkan punkt waa soo dhigat soma grosso ay noqon lahayd karena ayaad qortay waa khaladka koowaad deshalb schreibe ich ihnen grosso schreiben jetzt hay maxaad ugu qoraysaa deshalb schreibe ich ihnen jetzt صادرت ayaan hadda idin la soo xiriiraya saa darteed ayaan hadda idin la soo xiriiraya des halbi oo karena kaaga qorantay inan oo karena kaaga qorantay maadaama laba kale inay tahay gross oo karena shraybeen oo khalad weyn ahayn waxaan ku siinaynaa halkan gel xasan ma noqonayso taada gross saxanta labada khalad oo karena abaash ich halkan koma haddana punkti bay ahayd halkan maxay ahayd gross shraybeen soo richtig shraybeen ka khadar waa ku dhigataa gross oo karena shraybeen كلما بونكت هشيد صوتان فانجي كم حنقول يا جروس ich hoffe كما هلكا واقف صحنتاي dass jemand die Sache schicke هلكا محاكا وضع قف وقابل سنة قف كيدين قابل سنة ich hoffe وحرجين يا قف وقابل سنة dass jemand die Sache قف وقابل سنة يا هلكا قف وقابل سنة صدرم يا هذا هلكا خطرة واحدة فاهمة معها
ich hoffe dass jemand die Sache schicken waxaan rajaynayaa in qof alaabta loo diro ungefähr sax maaha laakiin waa ungefähr fahamkayga saasay noqonaysaa waxaan rajaynayaa in qof alaabta loo diro haddii qof alaabta loo diro maaha sax hadal meesha ku jira maaha saa darteed waa casaan ich bin haddana koma baa halkan punkti waa haysataa wayba bin misna kalena ich uga dhigta waa khalad labaad ich bin jeden Tag maasha allah tag roos ayaad u qortay ich bin jeden Tag ab 15 Uhr zu Hause halkan waa ku saxan tahay laakiin bin baa kalena u qortay inta kale jumlada sax bay ku ahayd marka iyadana maxay heshay gelb waxaan ka baqayaa meel cadaan in jumlada laga waayo khatar so auch haddana auch punkti baa haysatay khatar maxaa uga dhigtay soo sabta anfang marka soo garooso maahayn auch ina garooso u qortid baa auch am Samstag und Sonntag ganze Tag bin ich zu Hause halkan waa khalad weyn baa ku gashay sababtoo auch kalena ayaad u qortay auch Sonntag und Samstag bin Vorstellung Samstag und Sonntag maxay yihiin noom maxaa lagaa rabay bin inay dhexda gasho so ganze Tag ina halka soo gasho waa khalad ich bin Samstag und Sonntag so ich bin ganzen Samstag und Sonntag ganze Tag lagaa rabay ich bin ganze so auch am Samstag und Sonntag bin ich immer zu Hause ganze lagaa rabay immer zu Hause so ja auch große schreiben dann sag auch am Samstag und Sonntag Samstag muss auch große schreiben Sonntag auch große schreiben auch am Samstag und Sonntag bin ich immer zu Hause das ist ja ganze waa khalad tan kalena u qortay halkan booski waa isdaba marisay intaas oo khalad maxay keentay casaan marka so bitte antworte ihnen ja u jawaaba iyaga u jawaab bay noqonaysaa yaa loo jawaaba marka mit freundlichen Grüßen khadra halkan wala casaan bay noqotay so bitte antworten Sie mich ayaad ka weydi soo maha aber ihnen ja aber antworten Sie mich auch nicht richtig aber ja nasiib darro intaasaa khalad kaa noqotay walaal adiga dhibaatada ugu weyn ku haysataa Vorstellenka isdabamarinta positionka markii noom u yimaado maxaa ku xiga noomka mar kasta والله معلم beebka sababtoo Samstag Sonntag waa inay isweydiisaa Samstag Sonntag maxaan haystaa aha halka kan waxaan haystaa maalmuhu waa noom marka ich tag meeshtan waa inay bin timaado tagna looma baahnayn dhibaatada labaad ku haysata mar kastoo jumladu bilaabanayso maxaynu samaynaynaa sidaas see grosso u tahay baa grosso laga dhigay egal hadduu adjective yahay hadduu conjunction yahay hadduu verb yahay hadduu article yahay hadduu noom yahay egal kelmaddaas waxay tahay xarafka wax ka bilaabanayaan waa grosso markasta okay yaa ku xiga معلم أمينة waa ثاني معلم sana okay sana Ibrahim Fatima sana maxay soo qortay نجينا يحسن معلم casaankaaga iska sii sugaysaa miyaa shaama maalsaana insha allah waxaan rajaynayaa inaad warqadaadu noqoto tan ugu fiican rajada horta ma xuma khadro halkii casaan markii koowaad ba soo saartay soo markii gelbiga adiga soo saartay khadro markii koowaad ba casaan bay soo saartay yaa arkayay قلبي بس صارت معلم khadro markii koowaad ba casaan bay ina tustay waxaan is ilaha ka nixin waan u aamusay ama saana gelbi bay soo saartay rajadeedu ma xuma maray so tafaa'ul ayaan samaynaynaa bismillah sehr geehrte Herr Hannes sehr geehrte Herr Hannes mein Sana Ibrahim meine Sana Ibrahim معلم نامي بقيلو هالكاس هو mein Name دودنا maxay noqon lahayd mein Name ist Sana Ibrahim waa maqan yahay istina way maqan tahay feebka dhamaan uu ka maqan yahay jumlada tan horta casaankeeda hore ugu soo qabanayna ich schreibe Ihnen sehr richtig Ihnen du hast groß geschrieben du hast auch groß geschrieben masha Allah Sana ich schreibe Ihnen eine E-Mail halkan aan ku khaldan email baan idin soo qoraya hadal ahaan wala ma sax qofka haddaad hadda ay tiraahdid adoo wixii soo qoraya email baan ku soo qoraya sax miyay noqonaysaa ma noqon email baa ii soo qortay email baan ku soo qoraya waxaan u fahmayaa email baa soo socda Soomaa sidee u fahmaysaa adiga haddaan email ku soo diro ku raado email baan ku soo qoray ما علشان waxaan ka wadaa emailka waxaan kuugu soo qoray sababtaas
ja das geht waxaan kugu sababta kula soo xiriiraya laakiin das brauchst du nicht ich schreibe Ihnen weil ich meine Wohnung ja ich schreibe Ihnen okay tag gelbi aan ka dhigno ich schreibe Ihnen eine E-Mail macalin halkana waxba iga khaldan waayo qoraalka iga boodayay wax jira meelo badan oo qoraalku markaad qorto waxa laga yahay xag hoose qoraalku ku soo qorma dil aha WhatsApp waan dareemayaa waa wadi badan WhatsApp soo dhammaantiin haddaad warqad ku qori lahaydeen waad fiicnaan lahaydeen nasiib darro WhatsApp ayaa khalaas aydan file ich meine Wohnung halka maxaa ka wadaa in problem xaga eriga kula way iga khaldamay macalin sidii way iga khaldan yihiin halka mayna oo la kacday soo ma ya macalin mayna waa la kacday soo ma xaga oo la kacay xagee ka keentay phone-ga aad ka soo in divan mayna xagee ka keentay macalin waxa ka keenay mayna wax weeyaan marka ay tahay hadii isku bedelayso ya mayna erba ku raacaysa mayna soo ma jirto de erba ay raacaysa erta xagee ka keentay mayna aad baan soo toostay main divan na mayna madatif reflexive so madatif possessive form so madatif so accusative possessive ما markay noqonayso aad hoos ku soo ma anyway mayna so ana file if waa nominative halka waxa laga rabay phone wuxuu noqonayay accusative object darteed mayna soo dareen mayna wuxuu imaan karaa markii datif meesha yimaado sabab hadda datif kugu khasbaysamaya meesha ku jirta kuma jirto maxaa datif kugu khasbaya noomkii wax meesha subject ka horeeya file waa conjunction waxa ma dooriso halkan waxa ku yaala subject oo isha nominative accusative halkan noqon lahayd sababta aad phone ugu dhigtay marka datif waa khalad wax meesha ku jira maaha marka koowaad labo halka kan fiya baa ka dhigtay waxa ku jira halka iga khaldan macalin fin problem mit groß auch kleiner mit die Heizung ich habe dir angerufen hadalka dhan lama fahmin saana inta dhan lama fahmin kaas soo qaadi khalday inta mooyaane sida u fahmin alashan yawlan qoraalka ka fahmin mooyaane waxaan fahmin horta mayna meesha ka keentay ma fahmin mayna waxa mayna phone waa ko in halkii kan waxa laga dhigay mayna phone weil meine Wohnung das und das weil meine Wohnung genau weil meine Wohnung sehr kalt ist ayaa laga rabay oo kale sababtoo jumladaas uma dhamaystirin maadaama ay dhamaystirin ee file meine Wohnung waxa ka xayay guriga ayaa tin xayay guriga hadal dhamaystirin ma sababtoo fiinana fahmin fiin meesha way ku jirtaa meesha ka jirtaa ma fahmin maya hawo iga khalday macluum ku sheegay qoraalka hawo iga iyadana grossa ka dhigtay die Heizung ich habe dir aydan waa jumla isku dhaxyaasan saa darteed ana fahmin halka ayaan ku dhaafeynaa qaybta labaad aba waxay ahayd garosena u qortay walaal halka dhinac waa wada opportunity aba laydana khalad ayaa u qortay waa laba khalad aba layda können ich sie nicht erreichen aha können waa plural aba layda könnte ich sie ahayd könnte idima aanan heli karaynin ama idima aanan helinin fal la soo dhaafay saa darteed waxaa gashay kow oo khalada laba oo khalada saddex oo khalada si oo iyadana khalad kalena u qortay afar khalad ayaa gashay saa darteed iyadana waa casaan waxa fahmi mar walba igu dhigaysaa soo qofka aan casaan ka saaro wixii uusan fahminahay igu celiyo waxaan u calaaba jumlooyinkan uga shaqeynayna waa inay fahamtid khaladkaaga la soo celiyo waan fahmnay soo ma macalin inaa qofku wuxuusan fahminahay igu celiyo ama sharax soo sababtaan u diiday side right tag saddex tag min side ka maqan oo khalad side right tagen ayay feebkiina maba yaalaba side right tagen die Heizung entweder side right tagen ist die Heizung kaputt marka maxaa ka maqan feebkii dhamaaba ka maqan tagenkii oo iyadana daadka ka maqan laba khalad maadaama feebku uu maqan yahay automatic casaan bay noqonaysaa maba noqon karto wax kale sababta feeb dhan kuma jiro meesha ila jumladu maxay ka koobnayd subject iyo feeb wann können Sie die Heizung reparieren
وخبرين أنا كاخلدن أنت كده كصح بنقول وضعينا نحن في شيء ورما أيد هجاتين كتان أما يسود يعني شغالة بالصوفر ثم يغان ورما أيد هجاتين كتانين أما قصة شغالة وصح لكن دلوقتي بفكر تاجين هاي هذا الرئيس التوافقيني iyo halkan oo feeb khaldana isticmaashay xagaan way khaldantay macallin halkan inay khaldantay qalbi ay noqonaysaa laakiin casaan ma noqonayso way khaladka halkan wuu yar yahay feebka kaliya iyo geliida rungi oo dhamaantiin idinka wada maqan hadalkii iska hor imaanaya isku waafaqay information hadda soo mareeyay iyo hadalkan isma waafaqay so oda kalena ayaa ka dhigtay waxay gross information ala su'aal baa ku dhacday ala su'aalku waxay ka dhigan tahay jumladaas way dhamaatay jumla cusub oo bilaabanaysa jumladii cusbeed maxay ahayd gross inaa u qortid waa khaladka koowaad oda maahan si aynan tamiin oda maahan si miyaa loo sameeyaa tamiinka iyadana cidda tamiinka loo sameeyaa ma cad oda maahan si miyaa aynan tamiin ama ballan ii samay sababta ballanta lagu sameeyaa iyadana maxay tahay hadalkiis ma waafaqaya sababta hadal waday macallin ma waxay soo diraysaa qofkii sameynayay mise tarmiin ba ay sameeyay ja she can see me eine heiß so she can see me eine handwerker oder machen sie mir einen Termin aber dann warum fan meesha looma baahnayn marka hadalkii waan iswaafaqeen markaan ku leeyahay hadalkani waxa iska hormaanaya kan waxa oranaysaa kan sare haddaynu ma sax ka dhigno sidaan u fahmay waxaad goorma ayaad ii soo diraysaa qof guriga hagaajiya soo goorma ayaad hagaajinaysaa ama farsamo yaqaan ii soo diraysaa halka adoo hadalkaagu sii socdaa misna waxa ku hor qoraysaa mise waaba haddii aynu ka dhigno sidaan u fahmay miyaba meesha ka maqan laakiin waaba haddii mise ballan baa ii samaynaysaa marka ballan baad ii samaynaysaa mise ballan baa ii samaynaysaa maxaa keenay haddaan ku idhaahdo goorma ii soo diraysaa qof guriga hagaaji goorma ii imanaysaa ama guriga hagaajinaysaa mise ballan ii samaynaysaa af soomaaliga saas ma ku saxan yahay saana hadalkii baa isburinaya soo markaan idin leeyahay hadalkaa iska hor imaanaya isburinaya gegelida runkiga idinka maqan hadalkii baa isburinaya aan iswaafaqayn hadalku waa inuu iswaafaqo rayful sheekadii waa inaan iska hor imaan way isfahmaynaa baan rajaynaya taas waa isfahmayna sidaa darteed gelbi ayaa halkaasna kaa noqotay ich bin jeden Nachmittag zu Hause. Das war sehr richtig. Ich bin jeden Nachmittag zu Hause. Nachmittag große ayaa u qortay halka kan bin ayaa isticmaashay balayba qoladii isticmaalaysa kama miti zu Hause iyadana si fiican baad u qortay jumladaas waa sax komada on soo dhaway komada ha ka fogeyn Sie können einfach anrufen oder kommen oder Sie rufen mich an meine Handynummer ist marna adiga laftarkaaga lagu soo wacaya miyaa saara adiga telefoon noqday mar aniga soo wac marna telefonkayga soo wac okay jumladaas waa sax tan oder so Sie können einfach mich anrufen halkana mich ahaydina ku dirtay Sie können einfach mich anrufen oder Sie können mich einfach unter Telefonnummer anrufen saas Sie können mich unter Telefonnummer einfach anrufen saa darteed maadaama hadalku uu isburiyay wixii dhan iska hor yimaadeen saana ilaa halka waxay noqonaysaa casaan walaal sababtoo wixii dhan baa iska hor yimid hadalkii dhan baa isku soo noqnoq hadalka isku dhex yaaca mit freundlichen Grüßen mit waxay ahayd große freundlich waxay ahayd Grüße so waxay ahayd große mit freundlichen Grüßen iyo saana diina ya waad oran kartaa iyo saana laakiin hadda shirkaddan uma qori kartid iyo saana waa khalad for example anaga marka hadda baashi academy ahayd markaanu macmiil u qorino waan u qori karnaa iyo baashi academy sababtoo ah baashi academy markaas waa yani aniga si isticmaalayeen jamac ka dhiga macallin shirkad marka tahay waa isticmaali kartaa laakiin personal marka tahay iyo 9 ma isticmaali kartid marka iyo ma isticmaali markasta magacaaga kaliya isticmaali kartaa besten danke mit freundlichen Grüßen herzlichen Danken mit saana dan einfach aber iyo saana waa khalad walaal sadarteed iyadana casaan bay ka noqotay saana waliyaa dhaantaa laakiin gelbi badan baad haysataa cadaan baad haysataa ma liidi so yaa ku xiga yaa ku xiga saana yaa ku xiga yaanan u yeedhin macallin inaan calaraa haystaa sheekh maxamed maxaa ku haystaa khadxuma ما مغشها معلم هواكم مغلا هلا وبقى أنا عرلا ويا الصانع تذكر وصورنا معنا صوما شيخ محمد وين الراديو مارك عراني بلوك يعني
تجوك عراري لا دل عصا يدد بنول يدد وضع عصا نقضي بلوك هذه الشيخ محمد يخمس يتسوخن سو الشيخ محمد موسى إن شاء الله هو في عنتها رجيني هذا لا ما أستر قبلي بقى يا ضيقة يرين صوف الشيء حق هذا دقوا عرنس سو الشيخ محمد موسى محي يقول سبي هواي ولا البروحية صغر وادي سبق يا آخر من يعاون الشيخ محمد موسى بس أنا واحد خلدن قرية دالن خطك تعباني قهوة أنك وحيسو قبل لا يهمك عاقي وادي سبق بروحي صغر هذيك كيجا وكوسا قواني سيان كوهلا فينا نو رسم بانهي أبو ما إذا بابا يقول قرن بوادي سبق أنا ما هالشيء محمد موسى تلفن كان واحد يقول قرن الشيخ محمد موسى وادي سبق كان أبو ما إذا يقول قرن والله كي مقع كو قرنا ما كل هذه اوكي هذا يعني هري ابو مايد ابو مايد انت وير عيالكي انا كنت وير ميا وكان وين با لغو مقع درسن جري سو maaha تمير مان سيجاره وجعله عدالad ma sheekh maxamed كوين بي هيدي وكذا هبط يا ugu qorantay uma gabdhahan weydiinayay ya uma ugu qoran laakiin waa habaar macalin de ilmaha ugu horeeyay baa lagu qortay ka dhaxaa ku qorin habaar soo maaha daha ilmihi hore habaartay soo maaha abuga ilmihi ugu horeeyay ayuu magac ku qaadanaysa marka sida saxda asaas weeyaan sheekh maxamed wayna maayida ka guurtid weey ilmihi waalidnimada ku baray ku qora ku dhimacan aniga mabaan soo qorin baardayna imku aniga dib male qofta la yiraahdo mana walaan soo habeen dama imtixaan leedi soo dhac sheekh maxamed waa kana aba maayida wax leeyahay magacaas ma saxna soo magacaas weeyna ka guurtay ani lafta والله يهايستا بدلها ان شاء الله soo ilmaha ugu weyn ku qoro insha Allah soo محمد واكن marka soo warqadiisa waa iska yartay sheekh maxamed muuse marka khalad badan ma badhici karto wuxuu yiri guten tag my name ist Mohammed Muuse halkaas waa say riixti guten tag guten gross uu qoray tag gross uu qoray mein name mein ayaa khalad u qortay walaal khayre sababta mein maxay ahayd kala inay u qortay sababta mein gross uga dhigtay mein maxay gross uga dhigtay noom baan u qaatay هاي maxay tahay marka pronomen soma ma mine ban mine waa pronomen sheekh maxamed waa possessive pronomen ama possessive article mine waa possessive pronomen marka noom noqdo noom name ba tag ba Mohammed ba Muuse ba laakiin kan waa possessive pronomen dhowr jeer baan idin dhigay Soomaaliga possessive pronomen ku sheegay okay madaxa ku hay marka halkaas waa hal khalad halka khalad marka galbi waa ku qaadanaysa sheekh maxamed la sunni ximaaye هل خلد باقي اوكي هنا هل خلد قلب باكو شيء كسو تاج وحيري إخابة ein Problem und Safa meine Heizung ist einigen Wochen kaputt sehr richtig und funktioniert nicht mehr aha هل كان واضح انت واحد رقمها هي ich hätte gerne einen Termin aber leider du hast auch richtig geschrieben, aber leider bin ich die nächsten 2 Wochen nicht zu Hause. Aha, nicht zu Hause. Komma, ja, ich bin nicht zu Hause. Deshalb brauchte ich einen Termin in 2 Wochen, wenn das möglich wird. halkan hadda ku ciyaartay inta hore way ku fiicnay so halka kan horta punkt waa ka maqan halka waxayd komada waa ka soo tagtay waa hal khalad desalbi waa sax desalbi brauchte ich waxaan u baahnaa waa wax la soo dhaafay marka brauchte ich maxaa ka wada waxaan u baahanahay soo ma waxaan u baahnaa brauche ich bay ahayd oder mochte ich einfach mochte ich einen Termin so mochte ich einen Termin halka kan waxa wadataa so ich baa wadataa nominative halkan maxay noqonaysaa sidee bay halkan nominative mar labaad ku noqotay einen Termin ma noqonayso dee termin hada automatic muxuu noqonayaa object sababtoo
subject baa wadataa ich oo subject baa wadataa jumladii way soo socotay maxay noqonaysaa deshalb mochte ich zum Beispiel halka mochte marka dhigano mochte ich einen Termin in 2 Wochen ya laba way gudahood haddii laba way gudahoodna termin baa rabtaa ballan in lagu sii rabtaa labada week oo soo socdana waa maqantay see isu waafaqaysaa nach 5 Wochen ayaa oran lahayd Soomaa labada week oo soo socda waa maqanahay hada kor ku soo yiri ila hadalka waa inuu is waafaqaa lama rabo saar rabaan ku leeyahay digilida rungiga meeshan idinku sheegay waa tan haddaad u soo qortay labada week oo soo socda waan maqanahay haddana aad u soo qortay labada week gudahoodan termin idinka rabaa sidee hadalkaas isu waafaqaya Sheekh Maxamed that's problem ya digilida rungiga idinku haysto waa tan ayda markaa soo qortay labada week oo soo socda waan maqanahay halkan in nach ayaad ku bedelayd preposition kalka laga rabay muxuu ahaa nach 2 Wochen dann ich brauche ich mochte deshalb mochte ich einen Termin nach 2 Wochen saa darteed waxaan u baahanahay ballan laba week kadib ila laba week soo socda waa maqanahay saas richtig bay noqon lahayd oo halkan waxa sii lahayd comma ama punkt wenn das möglich ist halkan comma waa ka tagtay halkan comma waa ka tagtay saa darteed Sheekh Maxamed inta tan galbi waa ku yiriis asaan ma noqonayso khaladkaagu uma badna inkastoo halkan kan iska hortimo halkan asaan bay noqonaysaa Sheekh Maxamed warqadda yar laakiin braucht ayaa meesha ka maqan nächsten 2 Wochen nicht zu Hause deshalb brauchte ich halka kan waxay noqonaysaa casaan sababtoo brauchte xagee ka keentay brauchte verb meesha looga baahna maaha sidoo kale einen termin ayaa nomin isku isticmaashay waa khalad labaad oo ay gashay haddana waxaa khaladay prepositionkii halka naqka ismaal baa in isticmaashay saddexda khalad dartood casaan baa ku yeeshay halkaas oo ay saddex khaladan brauchte teeda khalad baa ah brauchte waxa weeyaan waa imperfect baa ka dhigata hadda fal la soo dhaafay waxaan u baahnaa waagaasi haddana halkay aynan ka noqon lahayd baa tiri ein termin haddana halkay ka noqon lahayd nach 2 Wochen baa tiri in 2 Wochen haddii in 2 Wochen waa maqan tahay soo kugu soo dirnaa dadka waa jahwareerinaysa marka jahwareer baa kordhis aydan wenn das möglich wäre taas waa iska saxnaan lahayd halkan comma waa ka maqan haddii ay punkt ahaan lahayd waxay noqon lahayd grosso qortid haddii comma halkan ku jiri lahaydna waxay ku noqon lahayd kaleena marka maadaama aysan cadayn hadda midkii noqon lahayd iyadana galbi bay noqonaysaa sababtoo kaleena iyo grosso midkii noqon lahayd mara comma halka ka maqan ayaa eersanaysa halkan comma dhan male sababta marka tan kaleena ugu qortay ma garanayno so sidaas weeye Sheekh Maxamed adigan alxamdulillah laakiin adiga hal casaan kaliya haysataa ka waran wada carariga dhabshay waxa yar laakiin qoraalkayga yar Soomaa ما شاء الله هل عسان كذا هذا هي ستقرأك ويري هي ها ويري هي لكن تراست ويري هي قرأك وخلت كيس ويري هذا سو إيجا مركز ورقد هذا هاي خلت كاجو ويري هي وجدًا صمه مرة والبوا قرأك ويري هي خلت كاجو ويري هي بعدين هكون تحضرين امتحان كمركز جريسي فضلا إنه واحد بدهم كورت اسكت داي حدد له ويرا فرسام البيع نسك بغريا فرت كاين هذا بعض هذا واحد دافتين طبعا كرينا ده لكن اسكت دينا لما بغري ستيتن إري قرتي طبعا الناس اللي قريان هذا امتحان كده صحي هذا الكيس بريو مين لوك حي الكريم في الشيخ محمد وحي البو قري خلت كيس نويريه وان فهمني سوما امتحان كنا واساس مركز سمسم هي سمسم وح مصور تورت ما على انا في عربيس كده عربني سوق الشيخ محمد وكلام هذا العرب ارتمال سم يا ايدي ما هرت سمسم ما هني او وقت دheeraad aan idin ku daray sababtoo waxaan rabaa inaan imtixaanka soo gabagabeeyo habeenkii ugu dambeeyay course kadib maar ana wada casana waan eegana ka Sheekh Maxamed Carab wuxuu noqotay bahalkii soo horta markii ugu horeysay galbi buu ku soo saaray nasiibkaagu ma xuma dan waan eegana insha Allah warqadaaduna aad bay u dheertay kulma warqadaadu ay saa u badan tahay suurtagal in salaadka ku maxay warqadaada ayaa aad u dheer soo ma jeedin warqada ugu dheer sidaas ama YouTube-ka ka soo xaday maaga okay barkeed ما خلطkeedana way sii firatay qof la yiraahdo Samson seegahata haya Ali waa isku saxan tahay ishrayba if soo ishrayba inan wala ishrayba inan ma hay ishrayba inan oda ishrayba ifinan soo ishrayba inan ay hay oda ishrayba ifinan labada wada qori karaysa sadarteetan waa khalad weil ich in meiner Wohnung eine Problem mit der Heizung habe taasi galbi bay ka noqotay maadaama aad halka ka tagtay subjectigi ich baa ka maqan tan way ku saxanta tan ilaa halkan waa seeriqti ma sha Allah waa seeriqti wax khalad mare ich habe sie angerufen aber space aber
leider könnte ich sie nicht erreichen aber leider konnte ich sie nicht erreichen tan way ku saxanta iyadana es ist sehr dringend denn seit 2 Tagen seit ay ahayd ist die Heizung kaputt halkaasna hal khalad kaliya ku gashay halka khalad kaliya kama siin karno jumladu way dheer tahay halka khalad baan ku sheegnaa laakiin qalbi ma siinin waayo hal khalad iyo jumlo dheer weeyaan Tagen ay ahayd inta kaliya ka maqan seit gestern ist es draußen sehr kalt und in der Wohnung sind nur 30 Grad horta taas ma iskaga dayateen dhammaantiin waa khalad sababtoo sind wohnung waxayd istina isticmaashid nuwa waa khalad iyadana maqan meesha ka keentay banaanka iyo gurigana waxa isku xiray ma garanayo hadal tigilida ruugiisu khaldan yahay weeyaan tan marka waa YouTube kan ka soo qaadan maxaan sendi wohnung sendi nur 30 Grad steht auf YouTube taas ma waxa YouTube ku jira waa khalad hada genau YouTube dad ayaa khalad soo geliya isha kanaalka hadda gashay kanaalka ka soo qaadatay YouTube ka soo internetka 100% waa khalad wax istaafrana 150 waa khalad soo maalin dhow khalad aan arkay ayaan idin sheegi doonaa ii sheeg YouTube ka soo qaadatay insha Allah saano wax jumlada oo ku soo diray hadda ma ii sheegi kartaa ma hadda inaan raadshi laakiin marka dib male marka YouTube kan galay waxaan doonaynaa hadda eego so come here das so YouTube ka maalin dhow waxaan raadiyay so maxay ahayd web baan maalin dhow ku qoriyay waxaan ana wax barbaariya waxay ugu soo baxay web aan u aqaano sign oo aan weligii habin noqon xataa gemiishta feben maaha oo habin lagu qoray so inta aan khalad ku arkay boqolaal jeer buu ka badiyay German baa qoray website German laakiin dadka wax ku qoray ajaanib u badiyay Hungarian beladi Romania fashi waxa soo qoray feben mid sign ayay habin ka dhigan waa khalad weey wax soconaysa internetka markaa gashid waa khalad wax badan oo khalad insha Allah mar baan intuu khaladaad badan oo macquul ahayn baa ku jira ayaan das ist so kalt für mich für ayaa walaalkaasi maqan markaa das ist kalt für mich und meine Familie meine Tochter hat schon eine Erkältung meine Tochter hat schon das ist für mich meine Familie meine Tochter hat eine Erkältung das was gesagt meine Tochter hat schon eine Erkältung das wird kurz hantai wann können Sie die Heizung Reparatur oder einen bekadhigtay laakiin einen bekawday einen hand fake schicken taasna hadda halkaas khalad ka dhigahay way ku saxnaan lahayd laakiin halkaas ayaa ka khaldan iyadana wax khalad gacanta kaaga dhacdan ka dhigana mein Mann ist jeden Tag nachmittag zu Hause taasna way ku saxan tahay Sie können einfach anrufen und kommen Sheikh Maxamed iyo qofta la yiraahdo magaceedii inta internetka nooga soo koobiyaysan baad noo been guuraysan 100% baad saxdeen oder Sie rufen mich an meine Nummer so meine Handnummer ist bla 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 mit Freunde la guuraysan so samsung qofta ugu saxan baad noqotay maxaad ugu soo hormari weyday warqadaha macallin ba wada khalad ban taariikhtii samsung hal khalad kaliya lagu qabsaday laba khalad oo mid aad u yar yahay mid suubtay ka tagtay inta kala dhawan sax taariikhtii weeyaan halka laakiin insha Allah YouTube ka ayuu dir linkiska insha Allah waneegay haye hada galma phone shamal phone muxuu yahay phone waa nom waa hal nom way send xaga ka tim send no 16 grad waa khalad mein phone ist nur waa auch iyadana waa hadal aan meesha ku jirin soo marka ay soo dir YouTube insha Allah waneegay khayr badan ay dirtiin soo waan raajiyay waxaan doonayaa inaan dhameeyo waraaqaha macallin ma sidoo kale macallin habeen dambe insha Allah waxaan galeynaa testiga biri subaxana idin sheegay gelinka hore qaabka loo galiyo insha Allah cod baan idin soo dhigay groupka khayr badan ayaan idin raajinaya dhamaantiin waxaan raajinayaa dhamaantiin inaynu gudubno roodo iyo nimco waan idin mahad soo nimco way nala joogtay iyada glass kale u wareegaysa roodo waan ku mahadnaqaynaa xilligaas ku soo beertay soo sharaf bay noo ahayd inaad iskoolka qayb ka noqotid soo qof aad u fiican baa tahay runtii dadaal badan oo sharaf badan waan kaaga mahadnaqaynaa xilliga nala qaadatay haddii aad soo laabatid mar labaad ku soo dhaweynayna insha Allah khayr badan ayaan ku rajinaya biri ay macallin ma mahadsantiin hay khayr bayn rajinaya aniguna insha Allah biri ayaan adiga ka xiriyaa iskoolka insha Allah hadii lahay nimco walaal adigana habeen aawa kuugu dambaysa qorada kale ayaan ku wareejinaya insha Allah macallin hay soo nimco qof aad u sharaf badan weeye qiimo badan laakiin iyadu wali way nala joogtaa insha Allah soo khayr badan mahadsantiin macallin maxay imtixaanka ku soo darbada bilay baastayda ku jitaabina nimco ma jitaabinaysaa waan tijaabin insha Allah hay haysti way nala joogtaa marka insha Allah jitaabis ardaydu way ku jecel yihiin nimco soo waa baasantiin Allah wada la sii socotid bay doonayaan
ما شاء الله خير بدن باردير جيني دمانتين هبين ونكسن السلام عليكم ورحمة الله هاي sidoo kale macallin وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته iyo ardada kulligiinba